quality-ga Axmed buugaan ka qaatay aniguna aan markhaatikahay waa labo yaa ka mid ah waxaa ka mid ah taa transformational leadership-ka inuu hogaankiisu yahay hogaan fog halkuu u guurayo dadka u sheego wixii raacayana uu raaco wixii aan raacayna Axmed ma khasbo secondly go'aan qaadashadiisu ay ahayd mid ku dhisan consensus building in la wada hadlo in la isqanciyo go'aan hadday go'aanka ugu weyn tahay oo Axmed tiisa aanu aniga iyo Xuseen iyo dadka la shaqeynaya aanu ka duwanahay Axmed wuxuu lahaa gatska uu ku ogolaado oo halka fikradu dadku u badan tahay inuu qaato halka jeexo marka mid isaga u gaarmo xafladda dee waxaan islahay anagu qolo bergiyo aniga Xuseen aad baan wada shaqeynay intii aan wasiirada haydo dibadaan mari jirno waxaan islahay shaqadeeduna way isku dhaweey marka wafdi badan iyo dad ajnabi oo Axmedna ay wada shaqeeyeen iyo dadkii Soomaaliland la shaqeyn jiray caddaankaaba waday mar af Ingiriisi baan ku soo talagalnay anigu af Soomaali baan wax igu bedelayaa imika laakiin waxaan filayaa Xuseen waa in lagu talagalay in khudbadiisu ay inta badan ay af Ingiriisi noqon doonto haddii Soomaali ka dhigto ka wanaagsan idinku badan maayo taariikhda madaxweyne Axmed Maxamuud Siinaayo taariikh caawa iyo barito iyo saadama aynu ka go'yoon karnaa tii maanta dhan la wado maaha buug baana imka lagu qoro markuu af Soomaali lagu qoray imkana af Ingiriisi saaxiibkeen Faaraxna si wanaagsan oo inkasta aanu hadalka aan wada dhamayn oo afilaya in aan fursad la siin doono Faarax hadda sayashay hordhac wanaagsan oo taariikhdii madaxweynaha ayuu ka hadlay taariikhda fog anagu ka bilaabmayna aniga iyo Xuseen anigu waxaan jecelahay inaan 5 daqiiqo ka hadlo experience-gayga shakhsiga ah iyo wada shaqayntii madaxweyne Axmed Maxamuud Siinaayo halkan waxa laga jeediyay taariikhdiisii in badan way noo hadhay inta badan taariikhdu waa anecdotal hal jeer taariikhda ama qof laga hadlo ama dawladda laga hadlo ama wadan waa dhacdooyin dhacay taariikhda ama dalkaas intuu jiray oo meel kooban laga soo qaadanayo inta badan markaas coherent ma wada bixiso waa in macno iyo tacbiir iyo explanation kala loo sameeyaa marka waxaan isku dayayaa quality-ga uu ka hadlay Faarax ee madaxweynaha xagga hogaamintiisa khaasatan inaan u isticmaalo inaan wada shaqeynteeda xagga arrimaha dibadda quality-giisa iyo leadership-diisa aan isku dayo inaan macno u sameyn karo dots-ka isku xiri karo si ay macno u sameeyso intii waqtigu saamaxo way loo baahan waa lagu soo noqon doonaa way la tahay أنا وأحمد وشقين تيدا حوق يدو وحب العمي لبضي كون يتضبضي بريقا سو كل مية وسكو ديارنا يدور الشو لفيني إني دعضو 2009 أنا خلدنين أما 2008 كيبا دبا ودعضي ودواتي لبا قور دور الشو دبا ودعضي بريقا قولة يدي معارض كهايد كل مية وقتون كوينا يوعد برشر بضن بان الدولة دي ظاهر ريالي أنا حق الدور الشو كو سار وقلت لي دور شلون حسوستا إن مركز دم بلنا بترجع بيجيسبا وحن حسوستا إن دولة إثيوبيا ونبرجع جار هاي إن أي فرسمهان كأننا سياسيين يعني أرمها الدور شلون لو قلت يا الجروب لها لكن مركز دم بوالجو شيء لابد يكون يطوان كي الدور شلون العادي لكن لابد يكون يستدي مركز حزبك كل مية ومدحوين أحمد سينايو والدورتي إنه نقدم مشرحة بالعلا والدورتي oo doorashadiina sanadii bad ay ka hadhay ayuu Axmed noogu yimid halkan dalkan Ingiriiska oo marka wada shaqeynteeda anaga shakhsiga ay qaraar iyo xoog bay yeelatay oo aan naaqishnay marka jihadii dalka xagga arrimaha siyaasadda dibadda ka xisbihan anagoo isku diyaarinayna marka halkan saaxiibo fara badan oo barigaan wada shaqeyno kulmiyana caawa halkan si wanaag ay fadhiyaan shaqadana gacan weyn ay ka geysteen arrimaha Axmed iyo anigu aan ka hadalay waxa kamid ah oo aan doonay inaan quality-ga Faarax uu ka sheegay aan u sameeyo micno lagu fahmi karo oo examples ah waxaanu qiimeynay dalka oo sanadii bar markaa nooga hadhay inaan tartanka doorashada galno markii dambe aan ku rijaxnay waxaanu istusnay in Soomaaliland oo 1990kii la soo noqotay xorriyadeedii markaana jirtay qiyaas ilaa 9 sano 10 sano aan ka yarayn maxaan ka yeelnaa waxa noo muuqatay adduunyadu inay isbedeshay markay Soomaaliland dhalatay dunidii labada power kala ahayd bariga Soomaaliland dhalatay
labadii power way dhamaadeen people power kii jiray wuu dhamaaday Mareykanka iyo reer galbeedka dunida iyo adduunka hoggaankiisa qabto dhinacii bariga waa laga tagay waxaan istusnay markaa annagu haddaan dal cusub oo aan xorriyadiisii weli helin aanay helin ictiraaf caalami ah taageero badan oo dhaqaale aan lahayn inaanu qiimayno siyaasiyan dalka halkaan u jihaynayno marka halkan aan doonay inaan ka sheego hoggaamintiisa inay ahayd transformational axmed weligii kama fikirin 5 sanadood oo madaxweyne noqonayay markaa haddii loo doorto inay taladiisu ku koobnaato laakiin wuxuu salka u dhigay hoggaan iyo aragti Somaliland ay ku najaxdo muddo dheer intay Somaliland jirtaba marka waxaan istusnay in aan u baahanahay in reer galbeedka especially khaasatan Mareykanka inaan la xidhno oo aan ka barayno arrinta iyadoo ay jirtay Somaliland marka ay xidhiidh lahayd meelo kale oo marka Mareykanku xoog in fact bariga waxa jiray tuun Mareykanka iyo Somaliland soo kala dhaxgalay oo Congress-ka waa arrimahan ku tashanay inaan wax ka qabanno dibadda waxaan ugu tagay dalka Mareykanka oo aan la kulmay Congress-ka dalka Mareykanka xagga arrimaha dibadda iyo muxaawanada oo aan ka raadinay qadiyadda Somaliland maanta xilsiga kulmiye Somaliland halka u socoto iyo waxyaabahan doonayna inaan ku najaxno halkaas waxay noo noqotay xarig meel noogu xiran oo bariga aanu arkaynay in loo baahan yahay in la sameeyo dabeedna intaan doorashada galin mar labaad anigii Axmed Silaay haddana israacnay Xuseen bariga waan wada soconay iyo rag fara badan oo kale arrintaas aanu siid amba qaadna haddana waxaan noo suuroobsay bariga markaa inaan dowladda Mareykanka aan kula heshiino inaan wax iska bedelayno approach-kayga aanu aragno Afrika kaanu aragno wadamada jaarka saanu aragno iyo qadiyadda iyo arrimahayaga iyo taageerada aan Mareykanka uga baahnay marka halka laga yimaado waxaan kaloo istusnay in wadamada jiiraankana Soomaaliya waxay ku mamaadaa ama buur ahaw ama buur ku tiirsano markaanu qiimeynay awooddeeda siyaasadeed iyo dhaqaale iyo nabadgelyo waxaanu aragnay in dowladda Itoobiya oo aanu jaarnahay dowladdii naga horeysana ay mucaamalaad wanaagsan la lahayd inaanu adkayno oo halka ka qaadno dabeetay intaan doorashada galin waxaanu aragnay dalka Itoobiya madaxdooda markii dambana intuu madaxweynaha muddo 8 goor ah 7 goor ah aanu is aragnay ninka la yiraahdo Meel Sanaawi oo markaa ra'iisul wasaaraha iyo ninkii ka dambeeyay anigii madaxweyne iyo wasiirada aan wada shaqeynay intaba waxaanu halkaas sameynay markaa saaxiib runtii la isku haleyn karo xagga amniga markay timaado iyo xagga iskaashiga qulqulatooyinka iyo siyaasadaha ka jira markaa geeska Afrika bariga prime minister Meel Sanaawi wuxuu ahaa nin awood badan dhowr iyo 20 sano dalka xukumayay reer galbeedku aad u qiimeeyaan taladiisa iyo awoodiisaba waan u baahnayn waxaan u aragnay in loo baahan yahay inaanu iskaashi la sameysano wax weyn baan arrintaas ilaa imikana noo shaqeysay oo Somaliland runtii u shaqeysay dhinaca caalamka carabta waxaan u arkaynay dowladda Imaaraadka iyo dowladda kale la mid ah inay yihiin emerging powers soo socda oo aan u baahnay marka tiiq weyneedii Mareykanka laga yimaado tajaarka Itoobiya aanu ku xidhnay marka laga yimaado inaanu caalamka carabta iyo islaamkana aanu dowlad aanu la macaamili karno wax la wadaagi karno inaanu la sameysano halkaana waxaan xoog saarnay dowladda Imaaraadka oo aanu tiraba ilaa 9 jeer ku kala noqonay heer wasiir heer madaxweyne ilaa 3 goor waxaan xusuustaa ninka imika boqorka ka ah Maxamed bin Said Al-Nahyan oo bariga ahaa amiirka dhaxal sugaha ah oo anigii Maxamed Axmed aanu si gaar labadooda shakhsiyan u aragnay arrimo fara badan oo istiraatiijig ah oo kuwa maanta inoo shaqeynaya dalka ka shaqeynaya haday tahay dekada Berbera iyo dhismaheeda iyo hagaajinteeda haday tahay dhinaca caalamka carabtu in uu cilaaqaad wanaagsan Soomaaliland la yeesho haday tahay iyo haday tahay xagga tijaarada iyo maalgashiga Xuseen baa ka warrami doona dhinaca kale khayraadka kale dhulka ku jira intaba dowladda Imaaraadka waxaanu u arkaynay inay tahay dowlad aanu iskaashan karno waxaana mahad Ilaahay loogu shukray inay noo shaqeysay ilaa maanta loo baahan yahay halka in laga sii wado dekada iyo arrimaha kala socda halka waxaan muujinayaa quality-gii uu ku sifeeyay Faarax madaxweynaha hoggaankiisu waa transformational kuma koobna awood inta talada loo idmaday waxay ku salaysan hoggaantiisu inay jirto mustaqbalka muddo inay tahay waxaana ku muujinaysaa arrimuhu ka shaqeynaya Axmed ma ahayn weligii nin manageriya day to day ka dowladda arrimaha dowladda management wuxuu u idman jiray mas'uuliyiin haday tahay wasiiro haday tahay mas'uuliyiin kale oo qaranka u qaablasan oo nin walba competent iyo xilkiisa
وكفر صدي قف حلكها كوها بون أو كصوب حكرة شقة لا أداية يسقوا مركا وقت وهلا يوسسين إنه استراتيجيك إيش ويسك الدلكة هي حق أمنية هي حق نقالها هي حق سياسة اللونج تيرم كا إن وقت وهلا وكجف فكرة ورق بدنا أنا كان كم ده هي دمر با وكل تسنجري أنا هو حن كم ده ردت كأت كيسقوا دوين أحمد مركا شقة كار كار لقي مادة أنا كت تسنجري عرمان وحكروا عن سياسة أنه وضعنا كم ده محل كيرنا سوماليا ما تفرق كرنا إن دل سوماليا اللي لا وجرو ونجارنا أو أمط أينو مردولو هنجري سكوب رقني أفناي بورو إيا بدنا ينوم الحياة وحالك كذا أنا إنفلونس بكويرنا يا ستوسا ما سدت بنا ستوسا سوماليا مركز وحينين اللوكال أنو كلا كرنا مستقبل كنا اللوكال عرف جرا وحنو قائمين وهرو جرجرين إن أنو كلاريفاي جرنا فيوتشر ريليشن كسوماليا هي سوماليا سيدي أي سوماليا أولاد أقوسي اعتراف يدعو أن لجوجين طريقي هراء إجري إن أنو كصادرنا دنيا وحكوا دينيسا تلكي وذا هيدين مرد دلك محاكو كلا تكتين محاكو شيسين مركا إن هالكاس أنا نقول حجو نقول صون نقطة وحنو قادنا إن أنو وذا هذا اللفرة سوماليا وهيد one of the bold foreign policy objectives missions كي هو الدولة دي أحمد سيناي أنتو جوجي إنه بلابته وجددنا هيد إن أنو وعدينا موقف كأنه عالم ككلام وشيء إثيوبيا يا عرب يا أمريكا يا إنجليز وأنو شيء إن أنو الصوماليا وأنو كجونا وشيء ولا الأساس أنو دولة نمذجة ولا صار نقولنا وحنرجع الله إن تانو بتاجرتان وسيدي إثيوبيا يا السودان بقى الدالكي كم تكها أي أكلا فصح قاتل وكلا تجين إن أنا وكلا تجنا وعلى مثل الطريقة إنه هذا طريق صح أنا لكن ولي لك قارن وجدتي لك الحا هالكي قدام بيس وأنا فيها إن هاي الطريقة قولا أي مكان فران يود كستون قدام بيس لا وفران إن وضع هذا الكاسوماليا يسومالنا إنه يسعى وقتي وحفلها هو إنه غير يهي وكسر نقول دورها هدي جامعة فرصة سيو وحنجعلها إن الريكوركا الرماد دبده أحمد سيناي أنسي وحن وبلارن وهذا تدكو وحي أي سؤال كقبلنا أنا كشكل لك وحنكو ختمة يا كواليتي أحمد بوك أنا كختي أنا قلنا أنا ختي والله يا كمدا وحكمدا تا transformational leadership كا إنه جان كيسو يا جان فوق هالكو جوري تدك وشجع وحي راعينا وراعه وحي أن راعينا أحمد ما خصبه secondly أنقاشيز هيد ميت كل سنة consensus building إلا وضح الله إلا إسقنعيه قان هذي قان كوجو انتهى أو أحمد تيسا أنا جي حسين يدك الله شقيني أنا كدونا أحمد وحولها قتسك وكوجلاده هو هالك فكرة دتك وبلنتاي إنه قاطع هالك شيء حمرك بدي سووا قارم